الله سيلا naagtii baa iraraysa alla waliga yalla maqaxooti baa ku jira haya allaaniya wiilkayga yar yalmahayga maqaxooti baan ahaanahayna yaagtii cirka ka guura dhulka ka cala dhulka ka dhuul dhulkaadan anaale eradka anaale haddii aad yaa waxaa saasaa kugu dhacaysa haddii aad ku darsato wax duurjoog waa libaaxa duurjoogka ah isagu doonayo inuu guryihii soo galo dhulka eradka qaato adigana doonayo inuu duurjoog kugu bedelo isagu wuxuu kaa dhigo waa halka loo duurjoog baa hadda la yahay duurjoog baa la iga dhiganaya wakaa meel walba waa la iga caydhsanaya aniga wiilkaygii yarkaa hadda naagti saara baa qabsatay adduunkii naag saara feeg ah oon run ahayn saara run ahayn ayaa qabsatay waa kaada waana qabsatay waxay tiri awalba hagara baad ahayde anigaa kaa adkaaye weligaaba nadan odayna kaa caydhsada odaygiine meel walba anigaa kaa caydhsanahaya anigaa ku keensaday anaana kaa caydhsanaya meel walba bay leedahay iyaa hadde aniga wiilkaygii yaraaba maanta qaxooti baanu ku jirnaa meel walba meeshii godkii awooye ku duugnaa dhulkii awoogay lahaa meeshii dhulkayga meeshii meel walba waxay tiri anigaa meel walba naagtaanu waa sheegatay adduunkao dhan bay sheegatay naagtaanu adduunkao dhan bay sheegatay adduunkao dhan bay naga sheegatay micirkana uma duuli karo maxaanu ka samaynaa adduunka ilaahow miya aadna joogin miyaa maqan tahay adigu ilaahow ma vacation baa jirta iyo xageeraada alla xageero araraa allah naagtii baa wali daba socod alla naagtan u dhib badanaa waa naaga badan bay diratay naagtan iyo waa naag feeg ah oo iska dhigdhigaysa saara isa baratadaasa saara iska dhigdhigaysa waa naagtii baa iska dhigaysa waaya allah aniga maxaa i haysta aniga refugee soomaali muqdisho iga soo caydhis baardheera iga caydhis waxay iga caydhisay buulaxaaw libooye waxay iga caydhisay muqdisho waxay iga qaxisay oo dhaylayd iga qayrisay oo iga kicisay buuhoodle etoobiya kenya soomaaliya maraykanka america meel walba waa igu daba socotaa meel walba war ilaahow maxaa i daba dhigay alla ilaahow maxaa i daba dhigay naagta meel walba waa iga sheegaysaa ninkan anuu i qabay wiilkan anaa dhalay good oo kirada waana bixinayna we give you the rent we are nice stay here for free why do you want to chase us why do you want to evict us we didn't do anything waxay ku leedahay naagi oo iyada la jirto dee saaxiibadeeda oo baabi oo waxay ku leedahay لا ماشي ما 10 years ku dhigay apartment bay ku leedahay oo 10 years apartment xageed aada meesha waa ku tabay saxiix iyo fal iyo double bed ila daba socotaay ifalooy adiguna nin surbuuran iyo balaayo everything waa keensanaysaa anigana balaayo shan iyo fixar iyo sixir baa ila daba socotaay maxaa anigu xageed aada what I do where I go adduunka anigu hadaaba igu daba socota adduunka ba iga sheeganayso oo igu leedahay naag xunaha ahayd hagaraha ahayd buluuyaa ahayd kanaad ahayd aad leedahay if you don't know me who I am. You claiming me something you don't know. Well, you are just to chase me. You getting wrong information. Who giving you this information? To chase me everywhere. Who give you that power? waxaan u sheegayaa ama sent a message ninka apartment-gaan iska lahaa 10 year baan u deganayno joognay waxay naagtan manager-ku inoo rartay hala weydiiyo waxaan u dhinay hadda ay markii shaqeedkan laga qaatay oo naagti kale hadda waxa weeye waa naaga wada socda naagahan waa naaga shirka ah waxa weeye waxa ay sameeyeen markay leeyahay shaqeedkii waxa laga qaaday shafar lacag badan baa lagu leeyahay ayay baxday representative-ka USA baan u tagay wuxuu yiri falkaaga lagama qaadi karo laakiin lacag hadii lagu leeyahay payment iska samee wax ila hadlayaba male hadda waxa weeye naagahan waa naaga daweeye naaga kibre weeye ilaahow kuwaana hadalina goblama allah iga reeb naagahan waa khaati waan habaarhaya waayo waxay igu faarayaan adduun aan arkin bay igu faarayaan aniga adduun ay leeyahay waxba kuma lihid waxaan ku leeyahay waxba
waay waxbaa kule adduunka waxbaa kule cirka dhulka waxbaa kule naagahan marka ay igu yidhaahdaan goblan baa tahay oo wiilkayga yar habaaraan oo abuuda dhashayda habaaraan oo dadka iyana waa habaarhaya waayo waa isla dhalay waxaan waa isla len adduunkan waa isla len keligood male haye anaarag ka xiga waayo waxa weeye anigu naagtii labada wiil dhashay baan ahay naagtii ibraahim u dhashay israa'iil u dhashay iya baan ahay anigu haye naagtii reer bin israa'iil u dhashay reer bin ibraahim u dhashay baan anigu dhashay reer bin ibraahim dhashay reer anaa dhalay ilaahay ka sokow annagaa dhalay haye ayadoo maxay sheeganaysa male naagtaa libaax oo duurjoogta oo laayim isku sheegaysa wax allaale waxa ay dhashay ma jirto waa naag iyadoo dhan ba rabsho iyo problem bay wadaa dadkii bay kala saaraysaa adigu libaax abaatid adigu kalaatay adigu only my kids and my husband qof walba everybody is your kids and your husband nobody come from outside everybody is your family it depends how you black color who what color it doesn't matter but bokisyada waa wadataa waxa kale waa wadataa yaanyuuraha waa wadataa laakiin annaga waa noqobaysaa annaga meel walba waa naga shaqaynaysayo waa naga soo dadku wallahi inaanan aamusin maxkamad baan ku geyn naag yahay wallahi naag yahay waa inoo dagaal waayo waxa weeye waad dhibtay qaati baan taaganahay anigu isma qarxinahayo al-shabaab ma noqonahayo laakiin waa iska kaa celinahaya maxkamadda adduunkaan ku geynahaya waayo waxa weeye soomaaliya iga soo saartay you kick me out Muqdisho you kick me out you ship me in my own homeland Buhod you threw me airplane truck you threw me Ainaba all my 4 brothers died there sisters everybody lose a lot of children my own auntie she lose 6 children you took us to Muqdisho you didn't took us to Muqdisho you took us to Juba Shabelle Juba you tell us to farm your back you slave us you slave my own mother why my own mother I know a lot of story women you is the same women I don't care if you're in Russia, I don't care if you're in America, I don't care if you're Cuba, I don't care if you're Norway, I don't care if you're Sweden, I don't care if you're United Nations. You're the same women. I see you as the same women. Yeah, you, same women. You give me hard time. You tell me move here. You brought me. When you want, you can use robberies, tortures, you can use Al-Shabaab. You can use anything you want because you got money. You have all the money and now you say, I protect whoever I want. I will harm whoever I want. I kick out the apartment whoever I want. You're like, what Eli? Where is my greatest God? You claiming sometimes God is my husband. Allah ilaha Allah ilaha Where are you? My greatest God who created the earth and the heaven. Who are claiming the earth and the heaven. Somebody claiming beside you and saying that my greatest God, you are his husband. Because this person affected me. Kismaayo iga soo cayriyay Libaya Soomaaliya iga soo cayriyay Kenya Nairobi iga soo cayriyay Utangu iga cayriyay Banaadir iga cayriyay Marafu iga cayriyay Kakumu iga cayriyay Today na America iga cayrinaya Today he won't take me out to America Today he follow me apartment to apartment house to house village to village Oh my greatest God Oh, this person claiming you are his husband, my greatest God. Stop this person as to